shabakada Facebook ayaa joojiyay 51 xisaabood oo shakhsiyadeed iyo 36 bog iyo 7 group kadib markii ay shirkadda dhinaca amniga internetka ay ogaatay in dhammaan barahani la xidhay laga leeyahay dalka Iran. 3 xisaabood oo shabakada xiriirka bulshada Instagram-ka ayaa iyana joojisay. Shirkadda dhinaca amniga internetka ayaa maalinimadii Salaasada ee shalay ahayd sheegtay in xisaabahan beenbeenta ah laga dhigay in Mareykanka ay ka dhisan yihiin, waxaana ay sumuujiyeen goob shariica oo faafisa wararka bariga dhexe, taasi oo taageersan dalka Iran. Faallooyinka ku qoran afka Ingiriiska iyo afka Carabiga ayaa lagaga hadlay dooda ku saabsan siyaasadda Mareykanka iyo Britain, dadka laga tirada badan yahay ee Carabta iyo raadka dalka Sacuudi Carabiya uu ku leeyahay gobolkaasi. Faallooyinka ayaa cambaaraysanaa aragtida muxaafadka iyo kuwa liberaalka. Shirkadda baraha bulshada ay ku kulmaan Facebook ayaa iyana dhinaceeda sheegtay inay sidoo kale baarayso isla markaana ay macluumaadka la wadaagayso hay'adaha amniga. Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame, wararka telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.